kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo fashiliyay qorshihii ugu halista badnaa oo cadawga Soomaaliland ay soo maleegeen Djibouti, Kenya, Turkiga iyo dawlado kale oo ka hortagay. Haddaba yay ahaayeen dhinacyadan ciday adeegsanayeen wararka hadda la helayo beesha caalamka oo cadaadis xoogan saaraysa golaha mustaqbalka iyo farmaajo isku soo dhawaanshihii dhinacyadaasi oo aad quus looga muujinayo filla Soomaaliya oo xoojisay tallaabooyinka ay u qaadayso Puntland iyo Jubaland iyo xaalka oo ka sii daraya wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe dhaqdhaqaaqyada hadda socda wararka caalamka iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garaysa like saarta meel fog gaarsii qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga ee warbixinada halkan inuu ku soo gudbino adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale fura gambaleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba waa hagaaga waa 26 June haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateenna adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheeryaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. waxaa Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Soomaaliland uu tallaabooyin waaweyn oo dheeraad u qaaday dhinacyada ay sahayaan cadawga Soomaaliland lagu tilmaamay taasi oo ka dhigan in la xoojiyay qorshayaasha gaarka ah iyo dhaqdhaqaaqyada arrimaha la xiriira sidii looga hortagi lahaana xukuumaddu ay ka shaqeynaysay maalmihii la soo dhaafay. wararka aynu helayna hadda ayaa muujinaya in ay kordheen tallaabooyinka waaweyn ee aadka u culus iyo dhaqdhaqaaqyada xasaasiga ah ee markaasi la xiriirinaya tallaabooyinkan iyada oo waliba ay u muuqanayso in hadda laga shaqeynayo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa. xukuumadda ayaa waxa ay si gaar ah u xoojinaysaa in ay qaado tallaabooyinkii ugu weynaa oo arrimahan ku saabsanaa waana midda kordhisay tallaabadan iyo dhaqdhaqaaqyadan saacadihii ugu dambeeyay iyada oo loo eegayo marxaladaha kala duwan ee loo qaadayo tallaabooyinkani. Ciro ayaa fashiliyay qorshe halis ah oo ay soo maleegeen dhinacyada ay sahayaan xukuumadda Soomaaliland iyada oo la rumaysan yahay in dhaqdhaqaaqyadan hadda socday iyo tallaabooyinkii ugu dambeeyay ay ahaayeen dhammaantoodba kuwo loo eegayay ama diiradda loo saarayay qorshaha ugu dambeeya ee ku saabsan tallaabooyinkan kama dambaysta ah iyo dhaqdhaqaaqyadan aadka xasaasiga oo ay hadda socda. xogaha la helayo ayaa intaasi ku sii daraya in ay si gaar ah saameyn xoogan ugu yeesheen dhinacyadani wararkii ugu dambeeyay iyo qorshaha la xiriira tallaabooyinka waaweyn ee aadka xasaasiga u ah iyada oo ay Soomaaliland u qaadayso tallaabadii ugu horeysay dhinacyada cadawga Soomaaliland lagu tilmaamay waana mid soo dedejisay qorshaha aadka xasaasiga u ah ee la xiriirta in markaasi ay sii kordhayaan qorshihii ugu weynaa oo ah kuwo xoojiyay maalmihii ugu dambeeyay tallaabooyinka loo qaadayo dhinacyada ay sahayaan tallaabada ugu dambeysana hadda ay u xoojiyeen waana midda ay hadda dhinacyadani kaga shaqeynayaan tallaabadii ugu weyneed ee loo qaadayo dhaqdhaqaaqyo asaasi ah iyo go'aano waliba lala xiriirinayo in ay yihiin kuwii ugu waaweynaa. waxaa Ciro iyo xukuumaddiisu ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyada aadka xasaasiga u ah oo ay ku saabsan tahay mowduuca ugu weyn ee dhinacyadan ishaya waana midda ay mar kale qaramada midoobe iyo dhinacyada kale ee Soomaaliland taageersan intuba ay markan u qaadayaan sidii loo soo afjari lahaa ee ku saabsan tallaabooyinkan oo ah kuwo markaasi hadda ay sii xoojinayaan iyada oo ay markaasi Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisaba ay u qaadayaan tallaabooyinkani in ay sii xoojiyaan taa oo ka dhigan in mar kale loo qaadayo dhacdooyinkii ugu waaweynaa oo la xiriira go'aanka mar kale Ciro uu kula dagaalamayo taasi oo ay xoojiyeen
maalmihii ugu dambeeyey dhinacyadan. Tallaabooyinkani waxay yihiin kuwo waqtiyadii lasoo dhaafay ay si degdega u qaadayeen dhinacyadan. Go-aanada kala duwan ee soo bixi kara ayaana lagu tilmaamay inay yihiin tallaabooyin aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo lala xiriirinayo inay sii xoojin karaan go-aanada qaarkood, iyada oo weliba loo eegayo mowduucyada waaweyn ay hadda taagan, walow ay Somaliland ka hortegayso cadawgeeda gudaha iyo kan banaanka sida uu Ciro sheegay, sidoo kale laga soo xigtay dhinacyada kale qaarkooda. Markana haddii aynu eegno dhinaca kale, beesha caalamka ayaa waxa ay markani qasab ka dhigtay wadahadalka iyo isku soo dhawaanshiyaha dhinacyada ishaya mucaaradka iyo farmaajo. Waxaa la soo warinayaa in ay markaasi isku soo dhawaanshiyaha farmaajo iyo mucaaradka ay yihiin kuwii ugu dambeeyey, sidoo kalena ay uga shaqaynayaan sidii ay isugu duubni lahaayeen ama hal aragti ay u wadaagi lahaayeen farmaajo iyo xubnaha kale ee mucaaradka. Golaha mustaqbalka iyo sidoo kale farmaajo waxa ay isku hayeen arrimo dhowr ah, waxaana ay u gudbiyeen qaramada midoobe doodo kala duwan. Farmaajo markii uu la kulmayay wakiilada qaramada midoobe waxa uu ku yiri, waxaan ahay musharax, ma ihi mucaarad. Taasi oo dood culus ay ka keeneen xubnaha kale ee siyaasiyiinta mucaaradka ah, iyaga oo weliba sheegay in ay markaasi farmaajo aysan isku group ahayn. Weliba Turkigu waxa uu markaasi ku goodiyey in uu u qaadayo tallaabooyin waaweyn, taa oo ka dhigan inay markale xoojinayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimahaasi. Dooda oo sii adkayd ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa Turkigu u waday dhaqdhaqaaqyo isku soo dhawaanshiyo ah. Wakiilo kale oo beesha caalamka ayaa la ogaaday inay ku jiraan go-aanka wax looga bedelayay qorshaha dhinacyadan isdiidanaa maalmihii ugu dambeeyey, oo ay si gaar ah hadda uga shaqaynayeen, iyada oo weliba ay hadda ku celcelinayaan dhinacyadu in mar kale loo baahan yahay isku soo dhawaanshiyo dhankooda ah si loo helo midnimo iyo midow, ayna dhinacyada uga shaqeeyaan go-aanka ugu dambeeya ee looga shaqaysiin karo si wada jir ah in wax looga soo saaro natiijooyinka wax ku oolka ah ee lala xiriirinayo tallaabadan loo qaadayo dhinacyadani. Waxaana tani ay qayb ka tahay dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo go-aanadii ugu waaweynaa oo ay natiijadoodu sii ogaayeen dhinacyadan qaarkood, walow ay beesha caalamku ku cadaadinayso in ay mucaaradku hal aragti oo midaysan ay ku yimaadaan. Haddana waxay yihiin xubno kala socda oo aysan ku midaysneen hal aragti, waxaana ay mucaaradku kala noqdeen qudhoodu laba garabna waa tiimkii farmaajo iyo xulafo la mid ah oo ay markaasi gooni goosad ama gooni isku taaga yihiin, halka xubno kale oo Jubbaland iyo Puntland ay ku jiraanna ay ku midaysan yihiin golaha mustaqbalka. Waxaana ay markaasi marka laga soo tago golaha mustaqbalka, xubnaha qaar ay ku sii midaysan yihiin golaha samata bixinta. Haddii golaha mustaqbalka uu ku beeri lahaa farmaajo ama golaha samata bixinta uu ku beeri lahaa, waxaa jira xubno siyaasiyiin oo ay hore isku qabteen oo ilaa iyo hadda diidan in markaasi ay tiimkooda uu ku soo biiro farmaajo. Waxaana ka mid ah Fahad Yaasiin, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Xasan Kheyre iyo xubno kale oo Dini iyo Axmed Madoobe ay ku jiraan oo si cad u diiday in ay markaasi qaabilaan farmaajo oo codsiyo hore u gudbiyey si markaasi loo mideeyo xubnahani. Haddana waxaa mar kale taagan caqabado waaweyn oo ka dhashay teeramkii farmaajo iyo dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen xubnahan oo si cad markaasi u muujinaya in aysan aqbalaynin amaba aysan ogolayn tallaabadani oo ah tii ugu dambeysay kaa oo ay mar kale u qaadayaan. Markaana dhinaca kale haddii aynu eegno, qorshaha filla Soomaaliya ee Puntland iyo Jubbaland ayaa kordhay saacadihii ugu dambeeyey, iyada oo ay xoogga saareen dhinacyadan maalmihii lasoo dhaafay tallaabooyin waaweyn oo loo qaadayay go-aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimahani. Dooda ugu weyn ee taagneyd oo lala xiriirinayay dhaqdhaqaaqyada kala duwan
ee ku saabsan arrimaha xasaasiga ah ee maalmihii lasoo dhaafay loo eegayay marxaladahan kala duwan ayaa hadda waxa ay xooga sii saarayaan sida gaarka ah ee loogu qaadayo tallaabooyinkan iyo in weliba ay dhinacyadu ka shaqaynayaan go-aankii ugu dambeeyey. Puntland iyo Jubbaland ayaa ka midaysan diidmo culus oo dowladda dhexe ay markaasi u jeediyeen iyo eedeymo waaweyn, waxaana dowladdu ay si isku mid ah markaan u wajahday labada dhinac iyada oo weliba u qaaday tallaabo lagu tilmaamay inay tahay gacan bir ah, iyada oo hadda ay goodintu sii socoto, waxaana ay hadda u muuqanaysaa in la kordhinayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsanayd arrimahan kala duwan ama loo qaadayo dhaqdhaqaaqyadan sida gaarka ahi. Waxa ay xukuumadda Soomaaliya Puntland hadda ku haysaa caqabadii ugu weyneed, sida Deni uu eedeymo waaweyn oo u jeediyey oo ku sheegay isaga oo golihiisa wasiirada dhowr jeer oo ay kulmeen, hadalla ay jeediyeen iyo go-aano ay soo saareen, intaba ay markaasi ugu jawaabeen dhinacyadan ay ishayaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha dooda adag abuuray iyo xaaladaha ka dhashay dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee saacadihii lasoo dhaafay doodahan abuuray ama markaasi ay ka dhasheen, iyada oo weliba la eegayo marxaladahan kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyada loo qaadayo oo Puntland iyo Jubbaland ay filla Soomaaliya hadda tallaabo kale oo dheeraad ah ay u qaadayso. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wararka bariga dhexe iyo tallaabooyinka Iiraan iyo Mareykanku ay qaadeen, Iiraan ayaa sheegtay inaysan jirin wax qorshe ah oo lagu geli doono goobaha nukliyeerka ah. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa mar kale beeniyey in uu ogolaaday in hay-adaha caalamiga ah ee tamarta atomikada ay markaasi ay kormeerto xarumaha nukliyeerka ee waxyeeladu gaartay iyo agabka nukliyeerka. Waxa uu markaasi bartiisa X ku qeexay in Switzerland wax kulan ah laguma yeelan Rafael Grossi, inkastoo uu codsaday. Sidoo kale ma jiraan qorshayaal lagu gelayo tallaabooyinkan, ayuu yiri, iyada oo weliba xarumaha la weeraray ee Iiraan aysan jirin wax agab nukliyeer ah oo halkaasi yaala ama booqasho rasmi ah iyo kormeer hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada aysan ku samayn karin baaritaano. Isagoo ka jawaabaya hadaladii uu maalmihii lasoo dhaafay markaasi sheegay Trump iyo ku-xigeenkiisa, waxa uu qoray, ma raaci kartaan siyaasad samee oo tuur oo lagu laray buunbuunin warbaahineed. Saacad ka hor qoraalka wasiir ku-xigeenka madaxa atomikada Rafael Grossi ayaa sheegay in la filayay in dib loo bilaabo kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iiraan, balse ma uusan sheegin waqti cayiman. Grossi oo ku sugan Japan ayaa wariyaasha u sheegay in isfahamka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan uu si cad u dhigayo in howlaha nukliyeerka ay hoos imaan doonaan kormeerka hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada oo baaritaano si dhab ah u sameynaysa. Guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.